اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى كدون استاذ لدالي دودي قلبيان كاداي dadkaygi dadkaadan idaariyeen daway damcigaada le idoorisay dar iyo adadegi manka wadnaha tacalkiis darmaa kugu taalla dibnaha qosolkooda waxay tahay duusata suganahay taalada dheer ee daljirka daasoon taas oo ka socoto dabaaldegyo aad u qiimo badan isla markaasna xiise gaar leh waxa barnaamijka ugu heliya oo iminka ila jooga Cabdixamiid soo dhawow ku soo dhawow janalka Furtunlaka Official saaxiib waa dhawahay janalkan aad iyo aad ugu dhawahay maanta waxa ku suganahay taalada gaar ahaan janalka Furtunlaka Official ka waran taalada daljirka daasoon waxyaabaha ka socda saaxiib wallahi niyo taalada maan dad badan aad iyo aad u badan isku imaadeen dadkaas oo u imaadeen qaar sawiro qaar barnaamijyo gaar ah qaar u ma xataa inay isku kulmaan oo macnaha jaceylkooda ama saaxiibkooda inta ku kulmaan suulaysan qaar kamida ciyaaro iyo soo kala soo bandhigayaan adiga maxaa u imaatay aniga waxa u imaaday saaxiib xoogaa waa ogtahay hadii aqida on yaranaay wareeg iyo xoogaa suulaysan saaxiib marka wareeg waxa u imaanay saaxiib adduunyo furis kale marka adiga waxa imaatay inaad waqti ku qaadatid yaa kugu heliya socdaalka maanta ku soo booqatay wallahi waxa ugu heliya walaalahay kala ah Absalaan Xuseen iyo Saabir Ali iyo gabdho kale oo socod inta laga sheekay ka war marka ciiday iyo dabaaldega ku jirta dabcan waxay kaaga duwanaa ciidii hore ciidan korood waxay ugu dhannayd hal maalin soo dhaaftay aniga shalay ciidnay dadna shalay soo naayeen dadka qaarna badana maanta wada ciidayaan marka aniga saaxiib hal soo leeyahay oo shalay ciidnay shalay soo naayeen ugu dambeyn asxaabta ku taxan janalka Furtunlaka Official iyo sidoo kale ku ka daawan doona channelka Soomaaliweyn waxa uu baaqaysan maxalli waxa uu baaqa asxaabta ku xiran janalka Soomaaliweyn Official ku soo yaacaan Furtunlaka taasoo ah gabar aad iyo aad u dadaal badan oo horumarkeedana aad u weyn ugu soo yaacnay aad ka mahadcelin horta soo dhawow Furtunlaka Official kaasoo kaala qayb qaadanaya maanta xafladda dabaaldega ciidda waan dhawahay aadan u mahadsantihiin magacaaga adoo ka bilaabaysa degmada meesha uga imaatay magacaygu Cabdiraxmaan Xasan Maxamuud degmada naga imaado degmada Kaaraan waa aad iyo aad u faraxsanahay maanta maaragtay maadaama ay tahay maalin ciid ee muslimiinta dhan ciidayaan kamadoo fiirinsay si wanaagsan aad iyo aad farxadeedii dareenkii ma la qiyaasi karo ma la soo koobi karo waa tahay sababta meeshan u imaatay daljirka daasoon maxay tahay galabta maanta waxaa u imaaday inaan muslimiinta farxadda la qaybsado oo dadka muslimiinta la ciido oo maaragtay waa maalin ku weyn islaamta maanta kale waa in guriga laga soo baxo la wada ciido la wada farxo waa inayna murug jirin si wanaagsan marka aad qaybtay dadka qaar waxay soo tageen inay ciyaaro sameeyaan hidii dhaqan kuwa inay daawadaan kuwa inay sawir galaan kuwana sidoo kale dalxiiseen waxaa u imaaday maadaama ay tahay maalin ciida oo maaragtay muslimiinta ay wada faraxsan yihiin ay wada ciido waayaan in muslimiinta la ciido aan ciida la qaybsado sidaas awgeed u imaaday yaa kugu helay socdaalkaaga maanta meeshan aad Kaaraan uga imaatay wallahi asxaab badan ay ahayn qaarkood meel ay kala jiraan qaarkood sawir ku jiraan adii ilaa iyo 6 baa gaareen oo asxaab
aad baa mahadsantahay saaxiib farxad ku ciidan ku leeyahay waxa ugu soo beeray laacib joor dheh laacib oo joorkii la joorkii haatan waxa ugu soo beeray laacib ka imaada Jowhar magacaaga iyo meesha ka imaada ما شاء الله السلام عليكم ومقعي يعني مقعي ما شاء الله مجابة علي محمود oo magacaabo oo degmada Jowhar degmo ka tirsan degmada Balaad oo ka imaaday ma sha Allah wax soo dhameynaa iid wanaagsan dadka ummadda idil meel alaalmay joogan iid wanaagsan ayaa dhiilay iidan iid fiican oo farxad leh wanaag leh waaye ma sha Allah ummadda idil wada fiican yihiin wada wanaagsan yihiin si fiican aan loo iiday maanta oo axad ah iid wanaagsan ayaa dhiilay waxa salaamaya ummadda oo caalamka joogto dhan oo asxaabtii oo salaamaya boqolkiiba boqol ninkii yaqaani ninka yaqaanibo salaam baa u diraya iid wanaagsan baa leeyahay ku soo dhawaada ما شاء الله degmada Jowhar ka imaatay oo u imaatay daljigda munaasabada ka dhacaysa socdaalka ayaa ku weeliyay ما شاء الله socdaalkii waxay weelisay gabar oo ما شاء الله oo waxa la dhahayo Faadimo Xasan ما شاء الله ay weelisay ay soo dhaweysay magaaladan aad joogo ما شاء الله yoolaashay Ali Maxamuud Laayo gabar Laayo yoolaashay Saxdiyo boqolkiiba boqol ma maasanyiin gabar waxaan salaamayaa ummadda idiloo maartay dalkii dibadda joogan iid wanaagsan ayaa dhiilahay kuna soo dhawaada ما شاء الله maadaama warbixinta oo ninka warbixinta wadane waa soo dhaweynaya oo ugu saaciday dhanka fanka iyo dhanka hadalkaba aad ma santa ka waran si looga iiday Jowhar maadaama saaki ka imaatay ما شاء الله Jowhar aad iyo aad ayaa loo iiday Jowhar ما شاء الله way iidaan iid wanaagsan bay iidaan ما شاء الله meel kasta maartay looga iidaa Jowhar wax ka wanaagsan ma jiraan waa magaalada oo magaalo madaxdeedii waaye aad iyo aad soo dhaweynaya dadka Jowhar aad iyo aad ayaa sharfaya wanaajinaya ما شاء الله dadka daawana maxaa leedahay dadka daawanayaan waxa leeyahay ما شاء الله soo dhawaada waa dabakirtiin oo caadi waaye wiil walaalkiina ay waa ni salaamaya maadaama maanta farxad ay tahay heeskuto noocan ku doonistaada la daalaye dawadii qalbigan ka daye dadkaygii dadkaadan idaariyeen dawey damcigaada le idoorisee dar iyo dunyaadan kubu deeqaaye idaay dulayse damacmale ما شاء الله خلاص ayaa keenaya alaha kalene mar kale ayaa dhiibi doona hadana kulli waa salaamatiin aad ma santahay ma sha Allah saaxiib faniya soo waa dhawa ma sha Allah aad aan dhawa magacay waa Yusuf Maxamuud Ibrahim oo ku magac dheer walaal Yuufa maanta ciid wanaagsan aan ilaa Soomaaliyiin dhammaan meel walba joogtiin anagana ciid wanaagsan ayaa ku leenahay dabcan waxa ku suganahay daljirka Daason degmada Boondere ka waran xagee u imaatay والله أنا waxaa ka imaaday degmada Shibis ciidii hore iyo ciidan waxa u dhaxeeya farqiyo badan inkastoo ciidan ciiday laba maalmood ee isku xigto labada maalmood ba farxad ay tahay ma sha Allah aad iyo aad u faraxsanahay waa tahay ka waran maanta meeshan sabab u imaatay والله maanta meeshan waxa u imaaday meelal badan waa arkay oo Muqdisho ka tirsan oo aad u qurxan laakiin meel walba aad tago waxaan arkay inay wanaagsan tahay oo qurux badan tahay dhulkeena hooy meelka qurux badan ma jiro beerta waa tagay badoo kale waa tagay taalada jooga haddana aad iyo aad u mahadsantiin dhammaan inta ku xiran channelka waxa leeyahay alo kalkici channelka Fartuun Laki official maxallada daawadaasha ka daawanayaan Fartuun Laki miya Fartuun Laki official friends ku xiran waxa leeyahay waxa ka codsanaynaa in asxaabta share badan ay sameeyaan wax walba waxa lagu kalkici karaan markay share ay leeyihiin qofka hadii uu share markuu dhahayo video waxa laga yaabaa inuu magaalada galo ani youtuber waa ahay tan kale TikTok waa isticmaalaa laakiin barta TikTok aad caan u waa oo ay u qoran walaal Yuufa marka waxaan leeyahay walaasheena ha loo codeey marka wax walba codeyntiina ku xirantahay insha Allah ka daawadayaasha mar la wadaag qosol maadaama aad TikTok isticmaalo sidoo kale baraad bulshada ku jira sheeko qosol oo dhacdaya ayu sheeg heeso kala daawada نشيدك ورا اوكي يلا تسوي مادام انا فرحت مالي فرحت مادام نشيدك كدفنا اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام جميل المعاني بحلو الكلام وكل الأماني ترد السلام سهرت الليالي زمير النجوم أروم الوصال بقلب
بخير الأنا أروم الوصاد بخير الأنا أنا ما صنت كلمة علينا وقتي أنا قاطي شنو سدوا بس كاميرا فيري هلا magacaaga iyo halkan naga soo booqatay maxamed cabdinuur anigoo ah yaalka dijigtaas ka soo booqatay wallaahi dad badan oo ciid ka soo qabgaleen maasha Allah anoo kamid ah maxamed cabdinuur leedahayo inta muslim waxa uu rajeynayaa ciid mubaarak waxyaal badan ayaa maanta degmada Kiimat degmada Boondheer waa tahay meeshan sabab imaatay iyo danaga dhici kartid meeshan waxa uu imaatay maan ciid ciido oo saaxiibayaashii la wadaago oo isfaraxno oo farxadda oo ka qayb galo ciidii hore maxay kaaga duwan tahay wallaahi kulleeyba ciidahan waa u jeedaa laba bir baa la ciiday khilaaf aawis waa sax aksad marka lagu fiirsho maxay maanaha ciidii hore kaaga duwan wallaahi ciidan wallaahi farxad oo aad u khaas ah ma jiro laakiin ciid hore ka fiicneed ciidan beledku waxa soo galay corona wallahi soo galay faan jiro oo waana jirtaa mana jirtaa wallaahi kullu hada wax hirgab halaaw leh waa qof ku dhacay wali wallaahi qof ku dhacay ma arkan horta beema sheegay laakiin dadka dhamaan waxay ka cawanayaan jiro la dhahay hirgab wax ma carfinaan waxna ma orinaan la dhahay misantiin jiro wallaahi ilaa hadda ma aaminsani dadku ku dhimanayna laakiin aniga wax ilaahi oo uu saxay waa hada ma santa saaca Maxamed Cali Naib wanaagsan magacaaga iyo halkaad uga soo booqatay degmada Daasoon magacaygu waxa la dhahaa Maxamed Cusmaan Cariif ciida waxaan maanta u soo aaday beertan kama dheeri beertan waxaan deganahay Boondheere waaxda daljirka beerta waan joogi jiray laakiin maanta waa iga duwan tahay oo loo joogi jiray laakiin maalmaha kale waa iga duwan tahay maanta farxad iyo ciyaaro iyo mashxarada lagu qaado sidaas darteed waa maanta waa howlaha tii la lahayd xataa waa loo soo daayay sababtoo waa aad uga duwan tahay maalmaha kale farxad si fiican oo ciidaysa dabcan si fiican maanta ciidaysa kamid ah ma sha Allah waa tahay sabab ay maatay daljirka Daasoon maanta maxay maanta inaa iska mixsado carrad ciyaar la dheelay ciyaarahaasna iska daawado ciyaaraha kala duwan oo aqaanina maadaam maalin farxadeed ay tahay isla markaasna ciid loo dabaaldegaayo halkaas ma jecel Soomaaliya waatay والله جعل اسكو في عنا هس ما اسكو في عنا هسا كركم ما حفتي انا اوكي هس جعل الدهن وهس كل عاديه يا هل هس كل عاديه ما هل هس عاديه هس عاديه برضو قرحت ميد ادله هاي ميد aniga la horta ma jirto laakiin هس عاديه بس هسا waata wareen ciid wanaagsan walaashay ciid lamid ah waan dhabahay kulka official ma sha Allah waa ku dhawaay waata waxa ku suganta daljirka Daasoon magacaaga iyo halka kaga imaatay magacayga Abin Cabdi Cilmi waxaan deganaa wartana wada meesha dadka taalada sax taaladan deganaa ma sha Allah waa ku dhawaay kawar maantay taalada soo booqday dabcan sabab u imaatay sabab asxaabteedina la baashaala ma sha Allah laba sawir iska qaad waata dadka maanta ciid ma kamid ah dadka sharciida kamid ah ma gartay maanta maadaama maalin farxadeed ay tahay dabcan daljirka Daasoon oo imaatay damaashaad iyo farxadina la asxaabtaada markaasna ku ciidid waxaa lagu soo kudi kartaa hal hees ma lagu tuuri kartaa masal hees misal sheeko hal sheekan uu tuura sheeg nin oo muxuu ahaay line nin waa la amal ma fahanto cabtooy meel naaga muxuu dhaayay tarjinka mar walba ku qayli jirno marka rooba imaaday wuxuu dhaayay hay oo ku gubay ha roobka ka xareena may ay ga xareenin he tarjinkiina ina xareestii bisan uu imaaday ma joogina camal mar walba fadhiisan jiray hada ma santahay ka badalay okay saka walaashay soo dhaw magacaaga iyo ciid wanaagsan ciid lamid ah magacayga waxa la xaasuud xali magacayga waxa la xaasuud waxa degan degmada Dhigle Dhigle ka imaatay
okay galabta waxay maartay inaad darjigiisa maxay maartay galabta waxaa u maadaa in asxaabteeda ilbaashaalo oo sheeg galabta waxaa maadaa in asxaabteeda ilbaashaalo meeshaan jibi degan farxadeedna ku qaat suuraan golo kale meeshaan ma jibi soomaal waata ciidan ka waran ciid hore kaga duwan tahay farq u dhaxay maxay tahay farq weyn ciidan farxad reereen ibashaad ciid kasta ciideena insha Allah si fiican oo ciid dabcan wariga sidii lagu ciiday si fiican lagu baashaalo oo lagu tamaashaalo maanta maadaama meeshan ciid u imaatay maalin farxadeedna ay tahay maxaad la wadaagi kartaa sheeko hees hal heesna uu jacayl ah fahansan oo jacaylka waxa wax badan telefoon بعدها تلفون هو كويس هس التورا let's go هذا دقي منكا ونها تعركيس درما كوكوتالا دبنها قصل كذا وحيتها يدوسة تصف كدم بيسة دوب هذا الكاغا إنان كدوب مديدي كراي دايما ذا أرقاقا إنان كدقايو حسكات فيني ما شاء الله عبد الرحمن فنان عن غويس مثلا قلت لي من فنان غم الله شاك وقتي لو انا قاعد على فنان كسبتي الجنه هذه ان شاء الله مركله كل ذنبه wanaagsan oo wacan kusoo janalka furtanlaka official bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacayga ku bilaaway maxamed cabdi jibaar ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka iyo dibaddaba ciid wanaagsan meel walba ay joogaan maalinta koowaad iyo maalinta labaad bal ciidda dad walba shoo kala iideen waad ugu si wanaagsan meel walba loogu wad iiday maasha allah waxaa ka imaaday maka almukarama maasha allah meel waxaan arkay doog fiican leh dad aad iyo aad dadwooy badan isku imaadeen oo kali laab maanta loo kala ciidaayo oo meesha kaale arag dhammaan meel walba ay joogaan ciid wanaagsan walaal hees haddii aan isku dayo waxaan qaadi karaa ciid wanaagsan heesaha ciidaha ka mid ah qaadi karaa waxaa ka mid heesta waa raadinayaa maanta maanta intaasita wadaal kusoo soo dhawow magacaaga waxaa la farxiya xasan cali waxaa degnaa degmada warta nabadda gaar ahaan 15 May waxaan halkan ka salaamayaa hooyadee xarif xuseen maxamed iyo aabe xasan cali waxaa la ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiintana ciid wanaagsan ma sha Allah ayagana waa filayaan ciid wanaagsan ku dhigi doonaan adoo kaamirada fiirinaysid ciid maanta sidee ciid wallaahi aad way u fiicneed laakiin ciidii hore aad ku fiicneed sababtoo ah hadda waxaan tarkiili maxaa jiro guryo la isku celinaa laakiin ciidii hore si fiican loo qasheelay ciidii hore fiicnaayeen waa gartay daldigida maanta maxaa u imaatay inaa ku tamaashadaan ciid wanaagsan ayaa leenahay daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan iyo xilli kastoo inay tahay barnaamijkii maantay aan ku eegaynay ama ugu kurgelinay daljirka dason iyo qaabka looga iiday kaasoo lagu soo bandhigo caada dhaqameed hidaha dhaqanka faneed iyo sidoo kale suugaan noocyada kala duwan iyo ciyaaro haddii ahaan lahayd sidoo kalena sawirro iyo meel qurux badan oo loo dalxiis tagana ay ahayd aan rabnay inaan idinkana idin soo bandhigna bal qaabka meeshaas munaasabadda uga dhacayso intaas ayaan kusoo gabagabanaynaa waxaan leenahay ciid wanaagsan farxad ku ciida damaashaad ku ciida meel kastoo aad joogto farxad weligiin ahaada kula caam wa antum bilkhayr